goobjoog u ahaa dhacda magaalada Hargeysa ka dhacday inan magaalada Hargeysa degan waxay la sheekaysan jirtay nin Mareykan jooga waxay u dirtaa sawir aan iyadu hayna saaxiibadeed leedahay ay u dirtaa inantu waa reermiyo waxna ma akhrido waxna ma qorto marka uu internetka soo galo inay yaraha badagina guriga jooga waa waxay tan kala hado waana garab fariista waxa ku dhe anu goobjoog banka ah inantii waa si fiican u garanaya laakiin dee ninka maan arag muddo fara badan markii la sheekaysanayay waxaa lagu heshiiyey in la iskuristo ninkii inantii wuxuu qoray $250 oo bermentally ah 28 dahabshil tagtaa $250 diiran oo aanay u soo dhidin ee soo taabataa waxay doonto waxa ku maamulato muddo fara badan baa la sheekaysanayay waxaanu ninkani aaminsan inuu habeen walba ku seexdaa sawir aanu lahayn naag bini'aadan leedahay naagtan loo sheekaysan aanay lahayn lacagtiisa iyo nidaamkiisina meel ay ku dhamaadeen dee laba garanayo left to left nimka la isla hadlayay dee qofka quraada laga daawanayana dee ma jirin waxa jiray bahalkii lagu shubanayay facebookii dabadna sawirka waa la isu dhigi jiray hawka waa 2010 iyo wixii ka horeeya muddo sanad ku dhowdhow inankaasi wuxuu soo diray $250 oo jaariya aniga inantiiba afkeeda iga sheegtay waxay sawirkaa gabadha kale ay saaxiibkii naag aad u qurux badan ay saaxiibkii bay sawirkeeda u dhigtay inankaa yaraha rudaaga yihiin baa fiidka soo fadhiista $5 bay kusoo shubataa laptopka inanku leeyahay habeen oo dhan ninkaa waa lala hadlayaan inankaa yar baan la hadlay inaad garab fadhidaa muxuu kuu soo qoray waxaa adna waxaa qor muxuu kuu soo qoray waxaa dhacday inuu inanka inantii habeenkii dambe dee qoraal usoo qoray wuxuu walaal diyaar baan ahay waan imanayaa saacadda noocaasaan diyaaradda kusoo qoranahay hargeysaan kasoo degayaa airportkana iga horkaalaya aniguna hargeysa uma dhalanne waa inaad dee ii diyaar garowdaa adiga iyo eelkaagiio meella la dejiyaa sidaan aan reerkii ku weydiistaa saacaddii oo hawada soo galay inantii kaarkii ay nin kalaad jijibis marka waxaad leedahay sanad buu $250 bilaash diray sanad buu wuxuu diray $250 bilaasha nin wal oo maanta magaalada jooga ama dhalinyara ama cid la sheekaysta ama qof dumar ku xidhanina tani waa mid haysata waxa weeye dumarku waa kala akhlaaq badan yihiin waa kala dhaqan badan yihiin ragguna waa kala deeqsan yihiin waxaa jirta inaan haddaad 2 bilood ama 3 bilood ama 4 bilood 5 bilood inaan kula sheekaysto aan awoodin afkeeda aan soo baranay inay tiro bari soo shubo iyo mid xalay isbartay kuna saaca walaal soo dir dad dees mid maaha waxa igu dhacday aniga once upon a time laba hablood oo aan isgaranayno iyo inaan la socota ayaan anoo gaariga wata qaaday hablihii waanu isbaranay inantii cusbeed waanu isbaranay hablihii horaan isu naqaanay anigu nin social media aad ugu jiraan kulli dadka inta badan way garanayaan inantii la iskaaya baray xalay fiidkii ee aan qaaday hablihii meel kula digtay ee aanaan wax khalwo dambe yeelan ee aanaan sheekays dambe yeelan ee aanaan isbaran ee aanaan meel isu raacin ee aan waxbana dhex marin 10kii subaxnimo anoo shaqada joogay soo hadashay السلام عليكم وعليكم السلام ابو انا ويورن هي خير ما في عنتها هي وانا انت حالها بلي سعتي هي والله هويدي ما خمسه سنه تبان قيلي هي ولا كنت دولاني صوت waxaan ku dhaw walaal koon kabe ku jiraan kaaga soo saaray halkee ma dhigatay kaaga soo qaaday doo wax akhlaaqda iyo dhaqanka bini'aadamada ka baxsan waaga jacaylku iibu bahaya lacagta hablaha la siinaya khalad ma aha waa soo jiidasho qof bini'aadan ah oo ku soo labisay oo ku soo diyaar garoobay oo ku soo baxay oo waqtigiisa ku lumiyay هذا واحد كمان حدنا نقول وحي خالد كمان درين لكن طريقة صح عابن كود هذا اللي قفك دينيا الله ربنا إلا جوسنا إلا تشعل هي إنك أنت سلا لله يوضع صعبة وإحنا نقول أمسناها إن أنت وحي يقول جوسنا هذا بدنا ولا جوسنا هذاك بابا بعطون له بيا هذا مك بعطون له سيا وحلا عليه وحي عيوب أنت إمرك أدو أود كريسو وين تسيسا وين واحد كي سلسلة كيلسة تعالي محبيك القعدة لكن هذا هو بدنا قاعد صدق هاتكتو ده هذاك تبغى كوسون نقول ميسو هاي جالس دونيسا waaga waay horta anu waxaan aaminsanahay inaan ama jeclaataa ma aysan jeclaan inaan nin aan lacag weydiisanayn totalis ka u gartaa weeyaan maamadaas waxay tidhi ninka inaan lacag siiya waan 2 nin bay nin u dhaafay waa runteeda ninka inaan aanay lacag aanay weydiisan siiya waa 2 nin waay maba weydiisanaysa waxaan aaminsanahay ina sharaf leh ina sharaf leh inaanay nin lacag weydiisanayn baan anu aaminsanahay waay maba aaminsanahay inaan baan nin lacag weydiisanay ay adiga he imika hablaha ragga lacagta weydiisanayaan maxay weydiisanayaan ninka mar raba lacagta si rabaan gabadhan ninka soo sheekhu sheegay laha gabadh imika waqti badan iga baxay ayaa hadhow markan guur ku damacno igoonaysa bishar baan soo dhacday sanaysa marka hore ninka meer rabiyada lacagta si rabtay waqtigeedana waa u gaadhay hada ku celi mikrofoonka dumarka waxaan aaminsanahay dumarku iskuma jiraan saanay dad farahan u sineen bayna dadkuna u sinay inan xun iyo inan wanaagsan bay leeyahay inan ciyaal suuqa ku jirto balwad loo nooc walba la jirta tanin inta qaraacdo wax weydiinaysa sheekhaasi 20 kun iyo soo dir lahayd waa inan balwad loo suuqa ku jirta laakiin inan sharaf leh oo akhlaaq leh nin bina aadan intay garaacdeen wixiisa ku xisaabtanto aanu ma aaminsani waad maasantiin waaye waxaan
أبوان كان يرى هذا أبوان كل عامسين هاي وجعل هاي أنتم مركوا حلصيو لا دقاليو هبلها وين سنت يقول يا أبوان واحد كلها هاي ما دام ترجوا وناتين oo haasaawna xataa dhinac ka jirtaan anagu ma doon dumar noqon ilaa haasaabo maliine haasaabo dhinac ka jirtaan dhalinyarada ku waaniya inay hablaha ku wacyigeliyeen hablaha wax siiyaan waaya burco halkana raaci halku muxuu yahay halkii intaan mikrofoonka wareegay haye halku waxa weeyaan horta wacyigelintaas way fiicantay wacyigelintaasi way fiicantay marka isaga oo meeran inankiisu ka bilaabaya wuxuu leeyahay aabbaynantaad la sheekaysato waxa weynantu dee reerkoodii maryo oo iibinaya runaanta inaad sheegto waa runta aad sheegtay ablu ma qaawana dharkoodii weydo bil kasta wax la qaatay hooyay maraxinka san dootay inaan soo aragtay ku weydiinaysa suuqaad geynta oo soo iibinaysa laakiin maxaa dee shoobin ma soo iibinaysid cream ma soo iibinaysid nayga fadhiisad leedahay jaamacadaadii iskuulkaaga baan ka bixi lahay soomaa laakiin waxaad ku waaninaysaa adigu maadaama aad abwaanow labada dhanba tahay adu dhinac walba daad ugu dhufanaysid baa waxa weeyaan dhalinyarta inaad ku gubaabiso wacyigelinta aanaad siiso xalku waxa weeyaan innamadu inay hawshii ablaha ay u adkaayaan ilaaliyaana inuu kula ka soo qaado horta meel midkiiba inantaas horta midkiiba ka hadshayba inantaas ayaa wixiiba soo gabagaysay xaqiiqdiina way sheegtay annaguna inantaasaan ku raacsanahay haddaan ragga nahay balse laakiin runta jirta waxay tahay horta gabdhuhu iskuma wada jiraan saani shantaa farood aan u sinay baanay dumarkuna aanay wada sinay waayo baldi su-aashaa ku weydiiye ayaan adaan ku weydiinay su-aashan weydiin waxa weeye inantu inaan calaf ku yeelan in kaliya habow inantii aad lahayd dhaqaale yaan u dhaqaaleeya yaan waxu siiya sidee dhaqaalaha saan ugu dhaqaaleeya ila waalidkeed mahi xaqaygu male wixii aan u dhaqaaleynayay cidda u tegaysay noo sheeg insha allah aan sir dhegaysan waay way ku iman doontaa waay hooyay ka qosaysan anigu adduunku waa ka jawaabi doonaa sheekana kaaga jawaabay sheekh jacalkow dhegaysaaniga daba waxaan u dhaqaaleynayaa horta noloshaada marka hore halkaad ku noolayd iyo halkaad ku nooshay marnaba dumarka ma dhamaatid hooyaa ku dhashay inan baad la dhalatay alaan baad rabto waxaad u soo labisatay waa inaan waxaad wadada u maraysa kolbatiis shalmada sii maraysa sii raacsa waa inaad sheegaysaa ta lagu dhaqaaleynaya dhaqaaleysa lagu leeyahay waa adiga waa qayrka naagna inan bay u taagantahay inanna inan buu u taagay marka ma waxaad leedahay nin qayrka ayaa u dhaqaale maya mali su-aasheeda ma fahmi su-aasheeda yaanu dhaqaaleynaya baad tirtay waxaan ku leeyahay inanta anigu walaalkeed meehi sheekaa naga dhaxaysa abwaane xagga dumarkaan ka soo dhammaado halkii baan iyo su-aashaba haye waaye waxaan la hadlayaa sheekha jacaylka waxaan marka hore inantaad la sheekaysanaysid ma waxaad adiga laftaadu ma ku meel gaar baa tahay inanta maxaad ula sheekaysanaysaa adu markaaga hore maxaad inanta ula sheekaysanaysay waad garaacday heblaayaa tiri way kuu timiday 2 bilood 3 bilood baad la sheekaysatay 3 habeen baad 3 bilood bis kada 3 habeen baad la sheegtay ujeedada aad leedahay waa maxay aduu horta soo inaad guursatid maaha haadhade ma calafkaa kaxeeya mise inaad kuma tirad inaad guursatid waxa loo dhaqaaleynaya inaad guursato hadday taada noqoto oo intaad waxba sii wado dayacday bari calafkaaga noqoto waaba markaad gurigiisa tagto ku nacaysaabade waayo kiiba tay baraadka calafna ku geeyay burca waad u bayaamisay halkana raacin mayaan waxaan ku soo gabagabayn lahaa nin walba inantaad la sheekaysato eed rabtid mustaqbalka rabto haddaanad nolosheeda kafaalo qaadaynin sida kaga bax intaa ayna tutrima la aaminsantay adu waa la aaminsanahay laakiin waxaan diidayaa de hablo badan oo rag aanay rabin lacag ka qaadan lacagta qaadan waa xaaraan ha joojiyaan de waxaad ku soo xidhaysaa marka waxaan ku soo xidhaya nin kasta dagan intuu mustaqbalka leeyahay uu jecel yahay in lacagta u gartaa waa intuu lacagta adigana المادريال إن لعقت في حساب مهم تانتي هذا لعقت بحين كري كري هو يدين شوكا قبل نبى كسوة تبع قروح دون يصير كري نشوكا داد قبل ده واحد رتال السيني واحد يقول النور وايه النور بسم الله وحنا شبابي أنا كان ولا الكينة يري إن أنتوا إن حيت ترين نك لعقت بحيا والله ما ونعس بوري ما هنعس وجيسي ونرجع nin fariido oo geesiya oo deeqsiya horta wax bixin kara nin bakhaylo oo deeqsayna wax ma bixin karo wax ma sheegi karo ninka deeqsiga kaas waa daanyeerka la sheegay waxa weeyaan maxay tahay ninka lacagta bixinaya deeqsinimadiisa kuma fahmaba meelaha kama sheego kaan waxba bixin kara haynaya laakiin waxba haysan inaan walaasheeda tabaysna waxba tari karin mid jecel waxba tari karina waa ka meelaha ka dhuma waxbaan bixiya waxba haysta kaas marka xal u arkaa ku soo gabagays xalka waxaan u arkayaa anigu waxaan leeyahay hablayeynimada وناقة هلا سلاقو يلا يسعبين هبلان هلا شرفين نمض هلا شرفين أبوان حلقة قرآن نوحي إن كيدكم عديمة لقرت دمرك ويفربونتها إن وحلا السياح حق بقى ولد الله خيامنا نقدايا
in wax laydin siiyo xaq baa u leedihiin inanta la sheekaystaa inanta reer baa dhalay waa lagu soo tabcay waa la soo koriyey waxbaa la soo baray waa loo soo labisay waa lagu soo tiiriya tacabeelay islaan iyo oday baa u jajabay adna waxaad doonaysaa in shirgeelaad jir inaad gacanta iska qabsato guriga geysto waxaad ku soo jiidan kartaa waa waxaa jeebkaaga ku jira waa ninkii hayadee anigu waxaan kusoo gabagabeynayaa dumarow ilaahay horta marka hore nagaga baqa dharka waxaa usoo qaateen dhagar islaameed dhiiggii raggaa fuuqsateen waana dhurateen waxaan kusoo gabagabeynayaa khiyaamada naga daayo intaa ilaahay ka baqdaan ninka aad dan ka leedihiin ninka aad dan ka leedihiin dan baa ka leedihiin ninka ay dan ka lahay lacagta iska daaya ayaan bismillaah horta gabagabadii baynu maraynaa in badanna waynu ka soo dood horta kelmad hablahan leeyahay habluhu aad bay u qiimo badan yihin waxaan leeyahay habluhu bal maadaama dhaleecadii badatay inamada haddii aad lacag ka qaadan jirteen bal lacagtoodii horta u joojiya u daaya bal horta lacagta ay ka cawdeen ay ka cabaadeen horta u daaya baan leeyahay kaydsadaani inamadana mid baan leeyahay waxaan leeyahay habluhu qiimay agtiina ka lahaayeen raggii hore kuwana maanta inay kala ahaadaan baa qurux badnayd sidaas hadda arkaya inamada hablihii qiimaadtooda kama laha qiimeeya hablaha sidaad walaashiin u ilaalinaysaan u ilaaliya ilaahay baa iskiin badaye gacmaha isqabsado sharafta hablaha iyo taynimadaba wada ilaaliya baan idin leeyahay waa hagaag kelmad baan doonaya waa gabagabada taagan kelmad usi waa gabagabo waxaan leeyahay horta dooda waxaynu ka hadlaynay inantu way sheegto waxay tiri habluhu ninka aanay jeclayn lacagtiisay qaataan oo ay jeceliyiin marka qaladku halku ku jira waa halkan ee qodobka uu barnaamijkeenuna ku saabsanaa nin aan la jeclayn in lacag laga qaado waa madnuuc in isagu bixiyaana waa madnuuc cid baa lacagta xaq kuugu leh waxa xaq kuugu leh marka horeba cidaad lacagta u diraysaa ama walaasha ha noqoto ama xaaskaaga ha noqoto ama hooyadaa iyo inantaada ha noqoto waan kaa gudbaya udhib anugu waxaan inantaas waxay tiri habluhu iskuma jiraan marka anugu dee inta aanu social media ku jirna hablaha majoritygoodu arrinkaagu ka sameeyey oo soomaalida waxay tidhahdaa baruur baa baruuriya qurmisa inanta saaxiibadeed marka nin $100 ama $50 soo diro iyadoo waxaa odhanaysaa kan wasaaradii kula sheekaysanaya horta intii gabagabadii barnaamijka marnaa abwaanka intiiba sheegaan laha sheeg waan hablow wen taas meesha ha timaado inu saamino lacagtani waxaan waa la sii doonaa haddii adinku aad ma garanaysaa waa hagaag waa yahay suhay xagga sarena waa siinaya okay way kelmadu baan oranaya waqtiga sii cuni maayo gabdhaha waxaa ku jira qaar khiyaanoolayaala iyo qaar daacada raggana way ku jiraan ha gabdhano nala dhashay waananu dhalnay weli maan dhalina de laakiin waan dhali doonaa insha allah waanayna dhaleen waanay nala dhasheen markaa sharaf iyo karaamaan siinay laakiin kelmadda ugu dambaysa aan kusoo gabagabeynaya waxa weeye diinteennu waxay tiri gabadha markaad mas-uul ka noqoto iyada xaq kugula waxaad haysatoo dhan inta ka horsana dee abaheedii walaalkeed waa hagaag waaye dumarka in lagu qiimeeyo lacag waxan mahaba dumarku ka qaalisan lacag waxan aad iyo aad wana dumarku waa hooyo waa walaalasho oo ku dhaxday way kula dhalatay marka inaad dumarka lacag lagu qiimeeyo ma wax ka weyn lagu qiimeeyo naf bay dumarku naftaada leeyihiin ya in lacag iyo waxan ka badan la siiyo way u qalmaaniyo waa hagaag udhib waa anu fikirka cabdifatax baan la qabaayo kubaddana meel dhexaan iskugu keenno waa hagaag igu soo dhibi mikrofoonka garyaqaanka qof kasta oo walaalaa ama waalida waxaan leeyahay inanta caawa la leeyahay shilimaad bay qaadatay waa sharaftaadii ka dhiidhi oo yaanay qof u baahanin si ay u yeelato baawar ay ku jihaysa nolosheeda